بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ah cabdilaahi sheekh faarax ahaana guddoomiyihii hore ee degmada erar sidoo kale guddoomiyihii hore ee degmada daroor ee gobolka jarar kana mid ahaa baarlamaanka ismaamulka dirdhaba hadalkayga maanta waxa uu daaran yahay nidaamka maalinka dhoweyd ama qaab dhismeedka lagu soo kordhiyey dowlad deegaanka soomaalida ee lahaa gobolada maamul magaalooyinka iyo degmooyinka waxaan leeyahay nidaamka wax loo dhisay dadka Soomaaliyeed in wax loo dhiso deegaanka weyn ee ballaaran wax loogu kordhiyo oo maamulada maanta jira wax lagu kordhiyay waa mid munaasab weyn hase ahaatee waxaa muuqata oo cad inaanan tallaabo la rogi karin in dad la dulmiyo mooyee in waxa weeyaan aan hore loo socon karin Soomaali waxaan odhan karaa Soomaaliya horta maanta waan idin gardhiganaya waxaan odhanayaa Soomaaliya waxaa tiin dadka ugu cadaalada daran sanku neeflaha dunida ku nool dadka ugu cadaalada daran baan Soomaaliya horta idin aragnaa waxa weeye Soomaaliyaan odhanayna hoggaanka ama mas'uuliyadda maanta u sarreysa ee deegaanka Soomaalidu wuxuu khariirada si dhab ah uga saaray dhulka iyo magaca iyo mansabka way leedahay beesha gurgure ee ugu faca weyn Soomaali war deegaankan Soomaalidu intii aynan Soomaali majaraha u qabanay kaliya aan la sameeynin federalism aan la dhisin dhulka ay Soomaalidu ka degto geyiga Soomaalida wuxuu ahaa saddex magac buu lahaa saddex goobood buu qaybsanaa Howd and Reserve Area Ogaadenia Ciisana Gurgura Awraaja saddexdaas uu qaybsanaa waxaan Soomaaliya idin weydiinayaa maanta Ciisana Gurgura Awraaja meesha ay ku sugan tahay halkii ku dambeysay baan is weydiinayaa war Soomaaliyeey waxa weeye dhibaatada ugu weyn ee maanta taagani waxa weeye in khariirada laga saaro magaca iyo mansabkii aan ku lahaa Soomaali meel dhawaan ka soo qabto intii dawlad ay yeelatay Soomaaliba aan ka soo qabto waxa dambe dib baan uga hadli doonaa insha Allahu kariim 2004 dhulka Soomaalidu degto waqtigii Cabdi Jibriil waxa laga sameeyay referendum ama cod bixin loogu loolamayo qowmiyadaha Oromada iyo Soomaalida meelaha xuduudaha war waxaanu ahayn reerka kaliya ee ka difaacday ee ka soo hadhay Soomaalinimada u soo hadhay halka ay Soomaalidii kale samaysay inay dhankana raacdo labada nin ee degmadan iyo degmada joogana ay noqdaan ilmaadeen markaan saaleey degmooyinkaas waxa weeye waa Baabili waa Jinacsani waa Nagayla tusaano soo qaadanaya annagu waxa dhab noo ahayd siyaasadda odhanaysa Soomaalinimada ku dhimo waxa weeye degmada Erar war waxay ahayd referendumka kaliya ee horta ka soo hadhay hal qabale oo kamid ah oo gurgura dego waa laga waayay inay galaan ama lagaga guuleysto referendumka ama aftidaas waa tii kaliya ahayd horta halkaas waxa weeye war ka dhigaara weeye Soomaalinimadu iyo inaanu dadkayaga iyo waxaanu isirkayga abkayagu nahay inaan ku adkaysano horta halkaas keenaysa war waxa dhacay deegaanku intii uu jiray isbeddello badan baa dhacay isbeddelada dhacay waxa kamid ah in degmooyin badan iyo gobollo badan iyo maamul magaalooyin badan gobol hadda ka hor la sameeyay iyo gobollo inta badan la sameeyay war annagu wuxun baa nagu dul samaysmay waxba yaraatee noo kordha oo noo siyaada kuma hayno dawladda deegaanka Soomaalida ee jigjiga ka dhisan ku yimaado hore iyo ku imika yimaadaba imikii haatan war degmada Erar waxay dhashay intaasoo degmay dhashay waxba yaraatee reerka uga soo kordhay isku soo celceliyo maanta waxa la isugu yimaaday intii uu reerku deganaa degmada Erari waxay dhashay degmada Gablol degmada Erari waxay dhashay degmada Duunyar ee xarunteedu imika tahay Casbuliga inta ka shaqeysa war wax reerkan u soo kordhay oo haba yaraatee wax lagu dul sameeyo mooyee la helay ma ay jirto haba ahaatee waxa ka sii daran taasoo iyaduna ka sii badaran in la sameeyo qabaleeyada degmada Erar ee uu reerkani dego in la sii qaybsadaba tusaale kooban degmada Gootabiki la leeyahay Gootabiki waxay samaysantay laba qabalo isku biiray waa la isku daray dawladda Cabdiilay ee tan ka horeysay baa samaysay waxa la soo rogay dib u curasha waqtiga lagu jiray gudoomiyaha degmada waxa yeelanaya reerna magaalo madaxdu yeelanaya oo xarunta degmadu yeelanaya reerna waxa uu yeelanaya gudoomiyaha degmada maxay taasi horseeday markii dib u curasho laga soo noqday waqtiga iyada waxa si toos loo magacaabay xataa gudoomiyihii degmada toos loo magacaabay oo matalayay degmada Gootabik maxaa dhacday markii saa looga soo laabay
war waxa weeyaan cabdi jibriil oo halkaasna gaarsiiyey maantana waxa weeyaan markii dib u curasho laga soo noqday aadan faarax oo ahaa ninka ugu tan weyn dhismaha dowladda ama waqtigaa jirtay in la yidhaahdo gooto bikiyey waxaad ku leedahay gurgurow 2 xubnood 2 xubnood ba horta maanta jooga haddii mid kale la eego degmadan erar ee la qaybinayo erar gooto ba horta ahayd erar goota iyo goota horta gootada la isku hayaay biki waxay u jirtaa 720 kilomitir erarna waxay u jirtaa 7 kilomitir ardayga iskuulka primary-ga ka dhameeya qabalaha goota wuxuu dugsiga sare ka dhigan jiray weligiiba dugsiga sare ee magaalada erar dakhliga si loogu kaba hadaba maadaama ay tahay goob wax soo saar oo wax soo saarkeedu uu aad u tiro badan yahay oo dhul beeraley ay tahay in maxaa la yiraahdaa goota biki la raaciyo wareedhaha waxaas waxna qabta ma aha halka 2 xubnood anagoo ku joogna maanta in la yiraahdo dawlad baa la ismaamul baa la waxa la sameeyay qaab dhismeed cusub baa la sameeyay oo gobol cusub baa soo biiray haye magaalo xarun magaalo la soo biiriyay haye maxaa xigi doona marka shalay arinta ugu weyn waxa weeye cid walba oo maskaxdeeda iyo maankeedu fayowdahay gilgishay waxa weeye hoggaanka nabadgelyada ee degmadaas goota biki shalay dadkii banaanbaxayay ee ka hadlayay dhibaatada haysata iyo dee ilduufka lagu sameeyey iyo dee waxa weeye dulmiga lagu sameeyey inuu intuu yimaado rasaas loo la dhaco taasi waxa weeye waayaanad waxa weeye saan doonaan kaa yeele ha hadlin weeye Soomaaliya waxa weeye war afka aan ku hadlayo inaan iska daa adeer waxa weeye inaan fogaano Soomaaliya yana loo horseedaya goota erar gootay ahayde horta waxa dhibaatada maanta heerka gaarsiiyay waa dawladnimadaas cadaalad la'aanta ah ee ay Soomaali leedahay weey halka markaan ka yimaado ismaamulka magaalada erar baa la soo kordhiyay ismaamulka magaalada marmaarsa la soo kordhiyay haye gobol baa la soo kordhiyay gobolkii waa kana waa la meeraysanayaayo marna biki marna waxa weeye afdan baa loo socdaa taasina wax isqabanaya ma aha waxa weeye waxayna isu qabanaynin horta waxaad tiraahdeen oo aad bulshada ka dhaadhiciseen oo aad dadka u sheegteen xuduudahaanu ahmiyadda siinay war degmada erari waxa tusaale kugu filan war degmada erari iyada ugu xuduudo badan oo annaga ugu xuduudo badan oo 2 xuduud waliba leh haddii canfar xuduudeed gobol loo sameeyey oo oromo xuduudeed gobol loo sameeyey oo degmo loo sameeyey oo laga horgeeyay oo lagu moosay war anagu mooska xataa mana loo quudi waay annaga 2 xuduudood lahoo maamulkii oromiya iyo maamulkii diri dhababa annaga u leh tusaale cad waxa kugu filan maalintii la magacaabayay 3 cisho ka hor gobolka city magaalada Shindheele qiimeyntii ka socotay ee degmooyinka gobolka city gudoomiyaha degmada erar ama maamulka degmada erar waxa lagu haystay oromiya xuduudda aad la leedahay maxaad uga qaban weyday diri dhaba xuduudda aad la leedahay maxaad uga qaban weyday way kugu soo faafayaan maxaad xal uga keeni weyday marmaarsa waxaan arkayay habeen dhaweyd wasiirka warfaafinta ee deegaanka maxamed oo hadlayo leh marmaarsiyo mooyaale waxaanu uga dhignay meelaha ay xuduudaha waxaan moos uga dhignay qaabkaas war diri dhabaan annagu xuduudii ka mid nahay maxaanu loogu quuri waayey oo oromiya nulanahay maxaanu loogu quuri waayey waa nasiib darro inteeda leeg wey war waxa weeye reerkan waqtigii u dambeeyey ee la rabay in khariirada laga saaro wey waqtigii u dambeeyey ee khariirada laga saaro wey waanu wada hadalnay aniga madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Ibrahim Cusmaan hase ahaatee in iyadoo lagu wada hadlayo wixii xal loo arko in la sameeyo oo xalku inta ka roonaado maanta in rasaas nool loo adeegsado dadkii ka banaanbaxay ama ka hadlay arinta de wax waa juuq horan wey in rasaas nool loo dhaco wiil yaro biki ka yimid inuu la dhaco waa arinaan meesha oo lin wey maamulka magaalada erar baan soo noqon magaalada erari waxa weeye maamul magaalo noqonaya maamul magaalada uu noqonayo dhulka ku xeeran ee ku gadaaman ee dhul beeraleyda ee dakhliga ugu tirada badan leh ee ka mid tahay santarka qandaraas iyo godde waxay noqonayaan meelaha waxa weeye ugu wax soo saarka badan weey waxayna ka mid noqonayaan xuduudda maamul magaaladaas weey waayo maamul magaalo ugu yaraan 5 kilomitir iyo dheeri bay noqonaysaa marka ay sidaas tahay ee lagu leeyahay erarna aniga leh adiguna degmanayguma lihid deegaankana waxba kama tihid wartaasi cadaalad darro weey cadaalad darratii ugu darnayd weey war dadku inuu kala xishoodo oo in uu aqligu shaqeeyo loo baahan hadduu aqliga saliimkii shaqeyn waayo wax iskeenaya male odayaalba maalin dhaweed hadlayo maxay u hadleen maxay sidoo yiraahdeen maxay kale u yiraahdeen waa la hadli
waxa weeye xaqara waa la iftiimin war waxa weeye siday wax u socdaan war cabdi jibriil baan ka soo harnay oo aadan faarax baan u dul qaadanay oo ibraahim cusmaanoo kan ah maanta wuxuu samaynayaan arkaynaa war waxa weeye mas-uuliyiintaasi iyo dadkaasi waxa weeye mustafa cagjarow madaxweynihii deegaankow war xaq darradii ugu weynayd baa dadkaa lagu hayaa war maamulka laga sameeyey guradhaamooliyo gurabaqsi iyo degmooyinkaas war dad soomaaliyood oo walaaladooda gaadsan bay degmo siiyeen annagu ma intii aan lahayn baana lagu dhex marinaya waxaasi waxaan u dul qaadan karna ma aha waxa aad iyo aad uga sii daran waxaasoo dhan degmada erar qaybta aan ka degnaba ee nalooba nisbeeyaba ilaa iyo hadda dakhli laga qaadan mooye haba yaraatee wax horumaroo laga sameeyey ama ceel ha ahaado ama waxa weeye siilad ha ahaado ama beer ha ahaado haba yaraatee wax development oo haba yaraatee laga sameeyey ilaa dakhli laga qaadan mooye ilaa maalinka maanta lama hayo waxaana la garamariyey dhammaan laamihii horumarka ee magaalada lagu horumarin lahaa waxaa ka mid ah lagaarka bal imika maanta lagaarka halka la mariyey lagaarkii ugu sokeeyey waxaa la geeyey bikiyo waxa weeye inta maxadanay waxa weeye 3 kilomitir 3 kilomitir u jirta ee magaalada erar waxaa weeye magaalada erar ee qadiimiga ah annaga dartaya wax badan horta loo daba mariyey taana waa nasiib darraynteeda leeg war waxaa kaaga sii daran annaga deegaanka soomaalida siyaasi iyo matalaad 15 sano kumaanu lahayn maantana kuma lihin waxaa weeye matalaad miiska wax lagu qaybinayo adeer maalinkii diri dhabana laga kaxaynayey ee nala geynayey goday haba noqotee jigjiga loo soo noqday labada wasiir saddexda wasiir aanu lahayn ilaa ay hadda Soomaali cid qabatay ma jirto diri dhab maalinkii la lahaa halkan naga rar Ethiopia naga soo galaysa halkan la lahaa goday la geeyey adeer maalintaas kuraasti ugu qaalisanaa ugu muhiimsanaa aan deegaanka Soomaalida ka qabanay waxa kamid ah hoggaanka nabadgelyada waxa kamid ah maaliyadda waxa kamid ah hanti dhowrka guud ee deegaanka maanta matalaad la'aan iyo xagee baa degtaa iyo yaa tahay war Soomaaliyay iska daa inaan dariskayga u cararno ama aan meel kale u waxaysnee mid aanan diin iyo diir midna wadaagin haddaanu gallo waradeer dantaana tidhi waxaa weeye cadaalad darro tii ugu darnayd ba horta ka taagan meeshaas haddii arrintaas si degdega loo xallin waayo oo xal laga keeni waayo dee waxa weeye halkay mudatay noqoni doontaa haddii ilaahay yidhaahdo halkay mudato ayay adeer noqoni doontaa waxaanan ka shaqaynin oo aanan waxba ku lahayn warlaamaha infrastructure waxa weeye hadday cusbitaal ku yaalla gobolka city noqoto ama kabikeed ama ka maxadana shandheele hadday kulliyado noqoto hal xubin xataa kuma lihin waxaa ugu sokeeyey kulliyadii ugu horreysay ee erar laga dhisay ee beeraha ibraahim cusmaan walaa in adeerkii oon kuba tartamin xataa booska uba tartamin xataa ku-xigeen buu ku tartamay ninkii u tartamay inta laga reebayba waxaa la yidhi adiguna ku-xigeen baa tahay in adeerkii uu yidhi maareeyaa tahay war arrintaas waxna qabata maaha Soomaaliya war waxaasi waxna qabta maaha haddii Soomaalidu cadaalad ay rabto war waxa weeye dib ha la isugu soo noqdo waxa kaloo baraarujin kale u sameynaya degmada erar dhulka uu ka dago gurgure wadada expressway-ga ee dirdhaba ilaa ma ay soo 150 kilomitir waxay maraysaa dhulka uu gurgure dago waxa weeye degmada waxa weeye saameynteeda leedahay wadada xataa waa loo qoori waayay hoos baana looga dajiyay kadib wada hadal ay yeesheen maamulka dowladda deegaanka Oromiya iyo maamulka deegaanku waxa dib loogu soo celiyay halkeedii hore war waxa weeyaan adeer waxba loo qoori waayo oo cagta hoosteeda la galiyo oo la yiraahdo xataa inaad waxyeelo qabtaan ummadda ha u sheegina waxna qabta ma aha waxna qabta adeer reyaalow ma aha war waxa weeyaan dadku ha kala xishoodo siday wax u socdaan hadday u sii socoto de Soomaaliya gees waxa weeye bariga harargay dadka la yiraahday wax Soomaali waxa weeye wax Oromiyu ku yeeray maanta laakiin waa deegaankii Soomaalida waa deegaankii Oromiya cid Soomaali aanan ku jirin halka ma jirto waa bariga harargay gobolka la yiraahdo misraaq harargay gobolka la yiraahdo dhammaantood nin waloo aad aragtaa waxa lagu oranayaa waa reebel waa nin Soomaali walaalaha Soomaaliyeed dadka idinka fogeeyay hararna idinka ka soo yaacay dir dhamaan idinka ka qaxay war maantana meel bad u socotaan war dadkan idinka waxa weeye gooni isu wade sida wax u wadaan haddaad ay ku socoto deegaanka Soomaalidu inuu isdulmiyo mooyo haduuna noolaan karin maalinba meel bay ka bixi doontaa Soomaali war Soomaaliya isguumaysan mayna adeer tani waa gunnimo isguumaysan mayno nin waliba waxa weeye dantiisu halka ay ku jirtay uu ka raadsanayo ayuu galaya oo uu ka raadsanaya horaanu niri haddaan dantayda ka waayo deegaanka Soomaalida iyo jigjiga adeer maxaa mancinaya inaan Adaami iyo Oromo meel ay joogto kara annagu adeer iska daa waxa sheey kuwaas ku aan diir iyo dub midna wadaagin haddaan ka raadsano wax mancinaya ma jiro
haddii sidan ay maanta tahay kusii socoto weji kale yeelan doontaa. war dowladda deegaanka soomaalida ka dhisan cadaalad darrada waxa weeye ka taagan haddii waxa weeye ee dadka gaarka ah lagu hayo haddii laga deyn waayo adeer dee waxay ka hesho iyadaa wadaagi doonta.